5 kilomitir u gaadhan annagana weerar ka qaadno al-shabaab ma al-shabaab meesha meel waxay isku argsanayeen marka weerar baan ku qaadnay waxaan ku dilnay nin halshan Pakistani oo xafil furjoogyaashooda kamid ah iyo nin kale Soomaaliya ma garad marka walaalo saddex qorin waa ka soo furanay lacag 49 milyan shilin Soomaaliya waa ka soo qaadanay barti control ma garad oo weerarnay marka walaalo nin baa naga dhaawacmay dad oo badiyo ma tigirayna dad baa iyaga ka dhaawacnay ma garad maya ayaga deganaa meel waxay adi meesha waa meel oo tuulo ka baxayeed marka meel control iyo waxay meel ayaga oo alshan dadku uga arrimiyaan ama xabsin waa ugu yilay maxaabiis waa wada ka qaadnay oo adiga ku ilaata qof camal ah marka walaalo lacagtaas barti control waa qabsanay marka dhowr jiha ka soo galnay marka muddo adiga ilaa 3 saac ka bacdina ilaa 3 saac muddo marka qabsanay 3 saac ka bacdina naga haysan dabadeedna anaga qorsheynayna meel si haysan ma baynba dib gurashan sameeyay awalba meelaha ka imaano oo noqon ma garad waxa ku sugan ayaga ku sugan ma garad anaga dib gurashan sameeyna deegaanada aan ka imaanay aan ma garad ujeedka aan weerarno marka hore meeshan weerarno waxay inaan ayaga la weerari karo meel laga qabsan karo dabadeedna afarta dhinaca loo kala raacday karo dhaawac dhimasana aan ugu dhigi karo ma